odayaasha xayraansan xasan sheekh ka mid yahay xilka qaranna soo maray bal xogtayda u sheega doorashadaad xanibteen xarigeedii lago xildhibaanadii gaartaa xal wanaagsan u jeexay xagga diid xaggana diid xujo meel la taagnow tan xumeeta naxaasi xal inoo noqon mayso nin kastoo ka xanaaqa ama taa ka xumaadana birig loo xajin maayo adeerow xasan sheekhow adiyo xisbigaagu danigaa idin xaraystay xaggiisa u duula xamar waa idinka dhammaatay war xilkii dowladdeenna rooblaa loo xil saaray xarigeedii hogaankii xukunkeediina qaaday isaga aan ku xurmayno waa xubintaan ku lahayn siyaasi xayraana war siyaasi xayraan oo rasaas noo xambaarsha ka ilbaxya hawiye taa waanu ka xirow xabad kuu ridi mayno xarbi kuu geli mayno xoolo naga heli maysid dowladihii aad xambaarsanayd iyo danigaa ku xaraystay u huleela xaggooda janankeenii xumaaday xildhibaanada doontay xabadda isla dhacayo xuduntii iskaga toogtay xagguu maanta ku noolaan xabsi baana sugaya xasan baa sababteediiyo xidaheeda lahaa adeerow xasan sheekhow xukun soo qaban maysi xabadna kuu ridi mayso dani baa ku xaraystay ku xisaabtan halkaasoo xaggiisaa u hole dowladda federaalka waxaa leeyahay dowloy horey baa soomaali ugu maamaada xukun jilicsan iyo gus jilicsan midna khayr ma leh ma rabno annagu xukun jilicsan rooblow xukun jilicsan ma rabno shooblow xukun jilicsan ma rabno waxaa kaa muuqata rooblow heedhe indha sacadna waad leeda mashiin shiikaasheedna waa ku saaraya looma baana waxaas waa inaad mashiinkii sacad la soo baxdaa waxaan u baahannahay annagu doorasho qof iyo codaan rabnaa nabad baan rabnaa soomaali nabad bay rabtaa cumar sheekh wuxuu nagu yidhi cumar khayr guddoomiyaha gobolku habeen dhoweyd doorashadu waxaa loo diiday oo loo hortaagayahay 13 xildhibaan ee loogu daray sanatarada gobolka banaadir in la laalo oo la joojiyo iyo in doorashada la joojiyo labadaas ay istaagtay maryaan yeela hawiyowta xasan sheekh iyo sheekh shariif waa ka yeeleen ina farmaajana waa ka diiday rooblena waa ka diiday qorqor waa ka diiday horta ragga maanta xilka inoo haya oo shanta ah oo labada maamul goboleed macal waxaa la yidhi uurjiro hooyadiibu ku gowracan yahay raxaweyne hawiye ku gowracanta waa hawiye ilaa inaga wax raxaweyne hawiye waa raxaweyn soo ma saddexdaa maamul goboleed iyo guddoomiyaha gobolka iyo ra-iisul wasaaraha shanta anigu bilad geesi baan uso xidhira ma siiseen saasaan u baahannahay beesha caalamka waxaan u sheegayaa beesha caalamkoy waxaa weeye raggii uubta noo qodaa tihiin oo sida noo galay waxaan idinku taageeraynaa garab istaagga iyo dhaqaalaha iyo horumarka aad bulshada soomaaliyeed la taagan tihiin waa idinka mahad celinaynaa laakiin dal xoraanuna 61 sanaanu xornimo maraynaa ma qaadanayno qoorqabad biyo ku cab sida aan rabno haddaad naga rabtaan naga weydaan waa idin burburinaynaa waa ka ilbaxnay ma yeelayno walaalayaalow beesha caalamka waxaan u sheegaynaa nadaaya safiiraatiin annagaba dalalka safiirra waa noo joogaan siyaasadahoodana ma dhex gallo nadaaya safiiraatiin safiirnimadiina ku ekaada haddii kale runta ka sheego cidda wax diidan sheega waa ogtihiin cidda wax diidan war doorashadu imisay soo socotay ilaa iyo dhuusa mareeb ilaa iyo September 17 war imisay soo socotay imise jeer bay dowladdu meel ka kacday war maanu ilaahay ka cabsano 2 mitir bayna sugayeen nin kastaba aniga dhinacayga iga xiga ina farmaajada janno ii geyn maayo danina cadaab ii geyn maayo nimankan waxay ku talagaleen inay dowladda ka ridaan mandate saan doorashaba u dhicin dabadeedna ay ku hawleelaan
muqdishona ayna nabad noqon dagaal ka dhaco qoryaha la soo qaadee la leeyahay waa isku ilaalinaynaa nin walba 100 askari soo kaxaystay waxaa lagu hubeeyey lagu wareejiyey xasan sheekh iyo sheekh shariif baa lagu wareejiyey waxaa la yidhi xamarka dagaalam nin daaroodina ku dhiman maayo nin diri ku dhiman maayo waxaa la rabaa hawiye in la isugu dhiibo war 17 degmo ee xamar yaa xukuma soo hawiye ma waxa xukuma gobolka yaa xukuma askarta joogta ayay tahay haye yaa marka dagaalamaya yaa la islaynaya waa yaar isu dhiiban isu sheegay war haweew siyaasi xayraana oo rasaas ku xambaarshay miyaynaan ka xoroobin ka xorooba maanta waa ka xorownay siyaasi xayraana oo rasaas loo xambaarsha yaa waa ka xorownay maanta waxaan leeyahay hadalkii waa idinku badiyey odayaal badanna waa sugayaan waana xumeeyey iga raalli ahaada waxaan doonaynaa maqaamkii gobolka banaadirna dowladda waxaan ka rabnaa doorashada inayna ka harin ilaahna may 50 sano dambe dhacdo inay ka hormartaan rabnaa in lanoo dhisaan rabnaa golihii deegaanka gobolka banaadir inaanu dhisano yaanu rabnaa waxaa weeye ilmaade rayaalow soomaalinima ina deeqda nabad baa ina deeqda wadaninima ina deeqda ya qabiilnimo deeqo qaran baa ina deeqa war qarankeenna aan ilaashano ninkii berri ku soo baxana aan la shaqayno soo dhawo daawadaha qiimiga badan oo halkani waa bogga Facebook ee Dhulmar Media si aad u heshid goor kasta warar iyo warbixin ku raalgeliya fadlan